suuradda xoogga iyo quwadda. suuraddani waa suurad cajiiba, waa suurad allah subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay fadaa'il fara badan oon halka lagu soo koobi karin. waxaa ka mid a in allah subxaanahu wa tacaala uu ku siinayo awood iyo xoog biidni illaahi tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. walaalayaal, waa idin salaamay dhammaantiina meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan. waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo biidni illaahi tacaalaa suuraddaasoo aad iyo aad u qiimo badan. waa suuradda la yidhaahdo suuratu huud. suuraddani waxay kulansatay fadaa'il fara badan ayay kulansatay, waxaana ay anfacaysaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay dacfiga xagga quwada. yacnii qofka hadduu ka baqaayo inay awooddiisa hoos u dhacdo oo suuraddaasi u daa'imo uu akhriyo, allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa saru u qaadayaa, xoogna wuu ku manaysanayaa. sidoo kale xagga maalka iyo maaragtaaye hadduu daciif ka yahay, ilaahay waa ka xoojinayaa. meel kasta oo aad daciif ka tahay, suuradda haddaad akhrido biidni illaahi tacaala awooddaada sare ayay u kacaysaa. waxaana la doonayaa inaad daa'imto akhrinteeda maalin kasta si ay kugu noqoto joogto awooddaada biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. janalka subscribe ku sameeya, like-tana riixa ee siina sheergareeya si dad fara badan ay oga maaragtay faa'iidaystaan suuraddan iyo fadaa'isheeda si ay uga faa'iidaystaan. adigana like-ta riix, waayo like-ta waa inta keliya aynu ku leenahay daawadayaashannada. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.